Missing girl, Ryan Ibrahim, have information. Call this number, 814-812-7366 or 651-399-3562. Ryan Ibrahim was last seen at Northland High School after 6th periods, Columbus, Ohio, on December 10th, 2021. Last seen, she was wearing khaki pants and black stripes turtleneck with black jacket over it and purple scarf, glasses, age 14 years. And halkan waxaan ku haynaa Rayaan and Dahir Ibrahim. And Rayaan Dahir Ibrahim walaalayaal waa gabar Soomaaliyeed. Waa gabadha Soomaaliyeed. Ilaahay ha xifdiyo. And oo magaceeda runta la yiraahdo Rayaan Cabdirasaaq Cali Aadan ama loo yaqaano Cabdirasaaq Ganay Cali Aadan oo hadda jooga magaalada Dhuusamareeb kana soo jeeda Dhuusamareeb iyo Gurceel. waa tan gabadhaas weeye maasha Allah Soomaaliyeed. Ilaahay ha inoo xifdiyo gabdhaheena. waa gabadhaas Soomaaliyeed oo la laayahay gabadhan Soomaaliyeed. Ilaahay ha xifdiyo. Ilaahay ha xifdiyo walaalayaal. اللهم إله سعلي واتنا ريان واتنا قبديني والمسنتهي أفريتو مسني جرتا إلهي دي لا أفضوبي يدي لك حيستي يدي لك سحري يدي لك خاطي يدي بيلعب سي إلهي قبدان مسكين تأه أو دالني رضا أو عردنك أو صغيرك ومستقبلك رجيني سي إلهو كسعلي قاري إن الوراء على الريبة لقياسية سيدا كاميرا قدام بيساعي قبطي مرك الله سبحانه وتعالى كسو سيدايو مرك طبعا سكول كي كصوب حدي يسدي اللحاد ويقدبتي قاري قوسي مركي قاري كلا أيا مركا ماشي كدقاقي oo xuf ku baxay gaarigaas ayaa la rajeynayaa inuu maartay lagu qaatay. marka gabadhii waa tanaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka soo celiyo. waa tanaa gabadha saas weeye. aabaheed saan idiin sheegay awowgeed baan hadda wareysanaynaa. Cabdirasaaq Ganay baa la dhahaa. hadda wuxuu joogaa magaalada Dhuusamareeb. waa nin ka soo jeeda Dhuusamareeb iyo Gurceel laakiin waxaa la dhashay caruur reer gaaba ah ayaa la dhashay. waana ninka loogu magac daray Dahir Ibrahim oo loogu magac daray oo caruurta ka waaweyn walaalaheeda dhalay. haddana jeclay South Africa inuu joogo oo ah beesha warsangeli. marka ما يعني ما شاء الله واتنا وقبضها الصوماليات. إلهي هالصحف ذيو الله سودايو عبدالرزاق غني بعد علي أول شيء بيش عير قرعيل دوسمريب كسو جدة. لكن أدير كيد وهو يدد المقدلة يسقونه وبيش ورسنجلي داهر إبراهيم بلدها حسين شيء قبضها وحصاكر صدي أوجد وعاو هالكان مرتين نوقعه إيه بريرتيد إيه زوج كيدي أبتيجيد gabadha waxa u tahay adigu abti okay xaaskaaga dee adii xaaskaagu samee abti iyo habareysa u timid oo dhalateen may
هذا فهمي يعني حر صومالي ويجاور ريس كمون وحرس لا يعني وحن لا يعني هبريني أبتي هذا فهمي يعني ما شاء الله ولا ليال إنا لله وإنا إليه راجعون مركا والوريس أيام بلابينا وريس جني أيام إنه بلابنا يسد جدان وحن لا تشوفها فاميلي أيام لا تشوفها ولا ليال بارك الله فيكم فاميلي أيام لا تشوفها ولا ليال أدر سودو مقعد نوش أدر معنا كورنا وهذا الذي لا يكد معي وحلي هذا علي محمد حسين علي محمد حسين وحلي يقانا الشيخ علي قرد مقنا أبوه عن وهاي maalintii jimcaha ahayd anaa geeyay iskuulka aroortii markaan geeyay duurkii markaan ku noqdayna dee gabadhii waan waayay gabadha awoowad u tahay awoowaan wahayaa sheekh cali maxamed baa lagu dhaha adiga sheekh maxamed cali khayr allah ku siiyo allah ku xifdiyo gabadhaadaa dhashay gabadheedaa dhashay waxaad u tahay awoowad gabadha u tahay awoowaan wahay anaana soo korsaday waayahay gabadhana waxaa la dhahaa rayaan daahir ibrahim waa magaca ay ku joogto maraykanka oo loogu magac daray step fatherkeedii ama aabaheedii labaad oo hooyadeed caruurta u dhashay laakiin aabaheeda xaqiiqda ah waxaa la dhahaa cabdirasaaq ganey ama cabdirasaaq cali aadan ayaa la dhahaa wuxuuna joogaa magaalada dhusamareeb kana soo jeeda dhusamareeb iyo gurceel waa saas alcayriyi wey maasha allah allah xifdiyo waayahay gabadha marka adaa soo korsaday gabadhanaa soo korsaday odagii gabadha aabaheedii hooyadeed way kala tageen ayadoo yar meeqay jirta markaas 15 maalmood ayay jirtaa 15 maalmood ayadoo jirta ayay kala tageen gabadha aabaheed iyo hooyadeed oo ayago isqaba miya waa kala tageen Soomaaliya 15 jir gabadha ayadoo tahay 15 maalmood ayadoo jirtaa la ii keenay okay 15 jir ayaa 15 maalmood ayay jirta ba awowgeed loo soo galiyay gacanta oo uu noqday qofkii la wareegay xilkeeda iyo maamulkeeda aabaheedii rasmiga ahaa ee kursanayay noqday haddii la gudmaayo xagee baad joogtay markaas waxaan joogay markaas ay ii keenaysay gobolka wardheer baan joogay magaalada wardheer ayaa joogtay maasha allah waa sheekheena sheekh cali oo ah culimmadii abayooniska maasha allah dhiigay dhacaankay aad baan culimmadaas u jeclahay hadda xaaji dabcsarna isku dad bay ahaayeen wardheer bay isla ahaayeen kaale iska argo maasha allah waa dadkeenni sheekh cali waa nin abayoonisa maasha allah waa culimmadii soomaaliyeed ee abayoonis allah xifdiyo gabadhiisuna maasha allah waa beesha cayr allah xifdiyo ayagana aabaheedna cabdisaaq ganey aabihii soo korsaday oo walaalaheed gabadha walaalaheed ama hooyadeed guursadayna waxaa la dhahaa daahir ibrahim oo step fatherkii ay magaceeda ay wadato ayib marka waxay ku dhalatay iyadu muqdisho ku dhalatay xageebad marka adigu joogtay markii gabadha lagu keenay anigu waxaan joogay wardheer meeqaad joogteen wardheer 2 sanaan joognay markaas 2 sanaad joogteen ka bacdi xagee u gudubteen kadibna qaxootigaan galnay qaxootigaas magacii sheedheer baa la yidhaahdaa xagee ku yaala Ethiopia ku yaala ka xagee wuxuu u dhow yahay awbar u dhow yahay awbar xagee ku yaala dadka u fasal xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia ayuu saaran dhinaca waqooyi galbeed miya waqooyi galbeed wajaal u dhow yahay wajaal u dhow yahay sheed dheer baa la dhahaa magacaas sheed dheerna anigu waan fahmi waay sababta loo wixii laakiin waa kolba waxaa degan meeshaas samaroon baa degta gadabiirsay baa dega waayahay sheed dheer kolba ereyga dheer waan qartay laakiin sheed ma garan macnaheeda okay maasha allah waa af soomaaligeena wax fog oo dheer maasha allah okay waxaad joogteen sheed dheer marka xerada qaxootiga meeqo xerada qaxootiga 3 sanaan joognay kadibna ardasaba aan u gudubnay 2 sanaan joognay 2 sanaa joogtay 3 sano sheed dheer 2 sano ardasababo 5 sano ay jirta markaas iskuul ma dhigata gabadho iskuul markaas ay bilowday xagee bay maxay bilowday klaaskii koowaad baa ay bilowday okay maxay meeqay dhiganaysa markaas intiinaan soo dhoofin 1 sano bay dhiganaysa 1 sano ka bacdi xagee u soo dhoofteen waxaan u soo dhoofnay America u soo dhoofnay
xagee ku soo degteen waxaana lagu soo dejiyey gobolka Pennsylvania magaalada Erie la yiraahdaana lagu soo dejiyey Erie Erie okay Pennsylvania waa tan waa Pittsburgh iyo waxa wada berga ku dhamaada hadii ay kudmay okay Pittsburgh Pennsylvania waa adigu ilaa 4 saac bilo jirta okay waayahay ka bacdi xagee uga soo gudubteen kadibna waxaan usoo guurnay magaalada Ohio Columbus goor ma soo degteen halkaan waxaan soo degnay 17 meeqa sano joogtaan halka marka waxaan joognaa adiga 5 sano ya 17 up to now meeqa noqonay xagga meeqa sano joogteen Pennsylvania Pennsylvania 14 14 baad timaadeen okay 17 laga soo guuray actually saddex afar sano meelahaas joogteen okay halkaana waxaad joogteen ya ilaa 5 sano okay xaafadee ku soo degteen marka Northkan degannahay marka gabadhu ma xagga deganaydeen dhinaca maxaa la yiraahdaa 5 Avenue xagga Lexington iyo 5th Avenue oo wadadan Cleveland gas stationka meelihiisa halkaas degantihiin waa gartay طبعا qofkii helana gurigaas waa kugu keeni kara adresskaas gabadha Soomaa adresku waa 104 Lexington Avenue Columbus Ohio 43201 miya 43201 marka waa 5th Avenue wad garanaysaa Soomaaliyay wadada Cleveland iyo 5th Avenue marka northka loo socdana midigta loo leexanaya marka southka laga socdo xagga downtownka loo socdana bidixda loo leexanaya gurigu marka gas stationka u dhow ka dambeeya miya waa guriyahaas gas stationka dambeeya halkaas aad guri ku leedahay oo aad deganaydeen waa gartay gabadhi marka halkan iskuul bay ka bilowday iskuulka meeshay ka bilowday waxaa looga bilaabay kindergarten miyaa looga bilaabay iskuulka waxay ka soo bilowday preschool halka xagga Pennsylvania Erie bay ka soo bilowday ayo kadibna halkaana usoo wareegnay marka elementarygii iyo middle schoolki primarygii iyo middle schoolki iyo high schoolki ilaa high schoolka halkaanay ka bilowday halkaanay waxbarashada bay ku ahayd aad bay ugu fiicneed oo A student bay ahayd A B student masha aad iyo Allah marka ma sebay yani high school ma tacliinteedu fiican ba yani lixaadkeedii miyaa yani wallahi ma garan karno de anagu ilaa sideedaad ma tacliinta ku fiicneed tacliintay ku fiicneed masha Allah okay fiican baana iskuulkii geynay de ayadoo weyno baan ugu xigtay sanadkan high school ku ugu horeeya marka waxay ahayd freshman meel dhahams freshman bay ahayd okay ka warrama marka kolba gabar yani jismiyan weynaatay oo ina noqotay bay ahayd u buuxsantay saan sawiradeeda aan ka aragno ilaahay ha xifdiyo ilaahayna ha soo celiyo ilaahayna ha dhowro rayaan waatana waa gabadhaas Soomaaliyeed qofkii garanayow waa inantaas quruxleyda ah ilaahay ha soo celiyo haddii nin Soomaaliyeed ama nin kalaba uu maaragtay gabadha uu ama jecel yahay ama gabadhi uu yani dalxiis la aaday ama uu afduubay ama wax dhaceen gabadhan laguma diidana waa walaasha ilaali dhowr dhibaataha u geysan lagama xigo wadankan da'deedoo kale waa lagu guurin karaa haddii yani waalidkii waa kana diyaar bay kuu leeyihin inay ku saxiixaan kuu guuriyaan lagu cafiyo waxba laguma haysto haddaad saaxiib la tahay haddaad ka haysatay haddaad israacdeen haddaad dalxiis aadeen please يعني دباتها هو جيسن أسدين أدونا دباتها سو جيسن أيضا هو جيسن أدون كان هالسجن آخرنا هالسجن وبلن إن لوجو ضره لوجو جوريو لوجو سيو لوجو شرفه العج أدون مال أبل جود لوجو سيو وقبل نادي وولاشة هذا Somali if you're true Somali please you know bring her back to her home we will honor you we will give you a prize even we will marry you if you love her. But please, you know, don't harm her or don't, you know, take her life or, you know, think in negative way. And خالد هو فكرين حمان هو فكرين قبضان أدا أركتي يعني صون نقطة أيضا صون نقطة ولا سكين دارين ولا سكين جورين هدون الصومال وياي أو دنا يرى أو سكول خليتا هدو يهاي أيضا أي نمق للسنة واحد عشاء لجامع ورتاجنا ولا وقدريا ولا وصينين بريا وحبة تجبر إلى العرراء علماء السوء علماء أدعو الحين بصوبة وحقد بصر لي الحرارة قبل الإسكار على عرريو أيها كصوبة تجاليد الصومالية
nairobi ka jirtaa meel walbay ka jirtaa turki bay ka jirtaa gabar nin soo korsadayaan in iskala cararaya haddii ilahay kudmay waana xaaraan diinta islaamka fanikaaxuhaa baadil fanikaaxuhaa baadil fanikaaxuhaa baadil waan kugu daraynaa maasha allah she's beautiful bay leedahay umu fatima yes waa gabar qurux badan 14 jira maasha allah aabaheedii step fatherka ahaa daahir ibrahim oo jooga south africa uu daawanaya saan jeclahay aabaheed cabdisaaq ganay oo gurceel iyo dhusamareeb ka daawanaya gabadhiisii ilaahay ha xifdiyo waa ujeedaa ehelkii iyo awowgeedii soo korsaday oo ilaa 15 maalmood ayadoo jirta ilaa hadda saa u soo koriyey iyo ehelkeedii ayaguna way daawanayaan fadlan dhibaataha u geysanin ha dhaawicin ha dhibaatayn haddaad jeceshahay waa lagugu guurin waa lagugu darin waa lagu siinin lagaama hortaagna waayo adeer gabadhii marka iskuulka adaa geyn jiray iskuulka anaa geen jiray haddaan maqanahayna gabdhaygaa geen jiray iskuulka ayaa geeyey maalinta u dambeysay anaa geeyey gaaraad ku qaada gaalaan ku qaadaa waa gartay duhurkiina anaa doonay markaan doonana waan waayay see u weyday dee markii 2 gabdhood bay ahaayeen gabadhii kale baa soo baxday ayadii markaan weynay meeshii baan ku galnay iskuulkii waxay nagu yidhaahdeen galaaska 6aad way dhigatay 2 galaas bay masgaraysay gabadhii ma hayno markaan niri computerka baalka hana loo fiiriyo cameradana waxay dhaheen cameradii hadda maartay ma furna booliskii baan u yeernay booliskii baa gudaha galay booliskii baa wuxuu cameradii fiiriyey waxaa la yidhi gabadhii way tagtay adigu nihaayo maartay maantadan bay noo yeereen ninkii principalka ahaa noo yeeray uu yidhi waxaan idin tusayaa bal cameradii gabadhii bal saad u aragtaan bixitaankeedii waxeeda marka dee inay meesha ka baxday oo maxaa la yidhaahdaa gaari cad ayadoo dhinac marayso baan gaarigii markay gudubtay 1 daqiiqa kadibna gaari madow unbaa meesha kasoo booday marka gabadhii oo sii socota oo sii jeeda baad aragteen cameradana meesha inoogaga dhamaatay marka ay gaarigaas hor ka gudubtay gaari kalaa luqluuqa ku jiray adigu 1 second gaariga maartay meesha ka booday gaari kalaa soo booday marka gaarigaas inay raacday baan aaminsannahay annaga marka maxaad qiyaasaysaan dad meesha ku sugayay oo iyaduna ay lugaheeda ku aaday ma sheegi karno taas ilaa afduubay noqon kartaa inay raacdayna waa dhici kartaa oo la sirsiray oo la yiri soo bax oo gaarigan quruxda badan oo raaxada oo fiican oo soo fuul oo waxaa dhici karta in iskuulka dhexdiisa daroogo lagu siiyo dhici karto soo la siiyey oo maankeedii iyo maandooriye la siiyo maskaxdeeda ay maqan tahay iskuulka yani daroogaa ka socota high school soo ma daroogaa ka socota yani sida haddana lakaga sheekeynayay musqulihii baa yani dhibaato ka taagan dhalinyaradii yani weliba high schoolka wiilashii gabdhihii yani musqulihii isku maartay yani gabdhihii darooga lagu cunaya dhibaato ka jirtaa rafaad ka jirtaa meeshu aysan ahayn meel igu soo orada america aysan ahayn waxaan codsanaynaa maartay Somali community inay noo kacdo ay wax nala qabtaan ilaa gabadha laga helaya ama haday dhimatana la helo haday nooshahayna la helo taasaan codsanaynaa intiinan hadda ku jirtay meesha fadlan sheer gareeya dab casarna waxaan ka codsanaynaa asna inuu dadaal badan muujiyo oo wax nala qabto annagu waxaan qabanay lawyer baan qabanay lawyerkaas maartay iyo booliska wada shaqeynaya sidii gabadha loo heli lahaa hadda waxay ahayd lawyer inaan qabano oo sheeg numberka adeer gacaliye wixii dhaqaale soo diraya ay ku soo dirayaan numberkan sheeg adeer numberka zeel iyo cash ama leediin sheeg zeelka iyo cash abka يوسف علي وحلية this is kidnapping situation وأفضوب بوليس ريبورت من القريب يكويدين يعني بوليس ريبورت واقرنا waxaa dhacday dabca sarow aan gabadha markii la waayay iskuulka adi aabo actually ilmaha iskuulka waxaa laga soo qaadaa 12 number korta ma sheegi kartaan yeah it's a 206 wal number zeel cash up sama yeah everything أنا ديارنا هذا ما أنا ديارنا إيش يعني 206 زين 503
cash up 99 so cash number kuwa maxay waa 206 503 503 9912 walaalayaal lawyer baa la qabtay fadlan zeelka iyo cash upka waan ka xumay inaanan diyaarin magaca lawyer baa la qabtay walaalayaal zeel cash upka waa 206-503-9912 206-503-9912 zeel cash upka walaalayaal gurmad baa loo baahan yahay and they should hire a private investigator waa inaad shaqaalaystaan baa la yidhi baaritaan ama baare private ah gaariga taargadiisa ma lahayaa baa la yidhi gaariga taargadiisa lama hayo okay 206-503-9912 206-503-9912 walaalayaal gabadhan Soomaaliyeed lawyer bay u baahan tahay kaalmay u baahan tahay gargaar bay u baahan tahay waa gabadheeni fadlan soo taageer please aan taageerna kulligeen aan u helino kulligeen waa jaaliyadeeni waa dadkeeni waa gabadhaas Soomaaliyeed walaalayaal please numberku waa kana zeel cash up waa gabadheeni oo la yahay 206-503-9912 waxaa loo baahan yahay gurmad dhaqaale loo baahan yahay sidoo kale waxaan sidoo kale reward aan bixinayaa qofka soo celiya waxaan siinayaa lacag anaa siinayaa hadii ilaahay kudmaayo ciyaalkaas hadaa gabadhaas if you tell us her information lacag baan ku siinayaa lacag baan ku siinayaa qofkii gabadhaas soo celiya waxaan siinayaa $2,000 ayaan siinayaa $2,000 baan ku siinayaa if you give us links or information about Rayaan haddaad sheegtid noo sheegtid gabadha haddii aad adigu jeceshahay ama haddaad jeclaynba gabadhii hadday noo shay aad haysid gurigaaga joogtid noo soo celisid $2,000 oo reward ah anaa ku siinaya ballan ilaahay weeye promise I will give you $2,000 if you bring her back haddaad soo celisid waxaan ku may Allah return her safe insha Allah ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo celiyo if you bring her back or return her back I will give you $2,000 cash $2,000 ayaan ku siinaya hadday ciyaar ka ahayd hadday kaftan ka ahayd gabadhaas haddaad soo celisid ballan ilaahay weeye inaan ku siiyo ninka Soomaaliga ama dhalinyarada ah ama yaqaana ninka madowga ah ama cadaanka ay la joogto ama gabdhaha ay raacday $2,000 oo reward ah ayaan idin siinaya please waxaa kaloo loo baahan yahay walaalayaal lacag baa loo baahan yahay iyo kaalmo ayaa loo baahan yahay hooyadii maalintii dhaweyto waad kaalmayseen lacag baad bixiseen gabadhii kale oo Portland waa kaalmayseen gabadhii kale waa kaalmayseen hooyadii kale waa kaalmayseen waxaan u baahannahay in haddii ilaahay kudmahayo walaalayaal aad ka qayb qaadataan numberka kan walaalayaal gurmad baa loo baahan yahay ilaa iyo Soomaaliya ilaa iyo Muqdisho ilaa iyo Hargeysa ilaa iyo Caabudwaaq ilaa iyo Gedo ilaa iyo haddii ilaahay kudmahayo Dhuusamareeb iyo Gurceel ilaa iyo gabadha in loo soo gurmado kulligeen waa ehelkeennii waa dhiiggeenii waa dhacaankeenii aabeed ha jooga caawa Dhuusamareeb iyo Gurceel laakiin innagay ehel noo tahay innagaa mas-uulka ah innagay nala dhalatay innagay dhiiggeenni tahay innagay dhacaankeenni tahay waa gartay marka waxaa kugu dambeysay adaa geeyey iskuul soo ma anaa geeyey iskuulka waa gartay iskuulka markaan geeyey aroortii aan geeyey duhurkii markaan ku noqday oo aniga aan soo qaaday labadii gabdhood gabar baa ii soo baxday sidii baan gabadhii ku weynay warbixinna saasaan ku bixinay booliskii iyo wixii waan wargelinay insha allahu lawyerna waan u qabanay hadda ilaahay baa keeni karo Soomaalida iyo waxaan ka codsanaynaa meel kasta ay joogto sawirkan markay arkaan inay noo soo qabtaan hadday lacala waxba xoog maaha sawirkeedii wakaas ayadana waxaan leenahay haddii aad saaxiiba raacday waa ku garab taagannahay saaxiibadaa kama horjeedno
gabadhaa quruxda badan baa tahay rayaanay please we love you come back to your home come back to your family if you have a friend or a husband we will reward you we will honor you we'll welcome you you and your friend please come back home may Allah return you home may Allah bring you back may Allah return you to your home safe inshallah ta'ala ilaahi adoo nabad qaba ha ku soo celiyo waa gabadhaas qalanjada qurxuleyda ah ilaahi subxaanahu wa tacaala ha soo celiyo marka walaalayaal soo celiya gabadhaas please idinkuna sheergareeya kulligiin gaarsiiya si ay qof kasta u gaarto please sheergareeya kulligiin waa in Ohio State Columbus Ohio State waa Columbus Ohio State please sheergareeya kulligiin inay state kala aaday baa dhici karta hadda maalin dhaweyto waxaan joogay San Diego baan joogay waxaan adeer arkay nin African American gabdho soo kaxaysta yar yara waxaan isleeyahay waa 16 15 gabar weyn baa marka ku jirta gabar weyn baa ku jirto adigu ilaa 22 oo hormood u ah kuwa yarka marka wali way xishoonayaan khimaarkoodii bay qabaan ayada laakiin waa qaawan tahay halkaas u qaawan gabdhihii marka qolbu ku xareystay qolbi darisna ama ku xareystay waa kuwa loo yaqaan bim u gadaya marka gabadhii marka Minnesota u noqonays hada يعني يرحى والد شو يبغى تلفون كقري ونقرا هذا بدي يبغى يصدر بدي كله وده قروحنا عيلة ده هاي يعني الصومالي عدان يمدو يطلياني يفرنسيس ينجليزي عربي عشان قبلها قروحنا مالها قبلها يركع بيم بلده هو قبلها كذا وعوي حق مركي تشوكتو مركا واساس سان دييغو حيبها عدان بالله قضيه مينيسوتا يكونوا قناصا خمار كذا يركب يقبطها ودن كان والله ضيعمي والصغير قبل يرير والله الذي لا اله غيره افريكان امريكان هدي لا يكون دعيه كو ان waxaan leenahay cadaan iyo madow iyo Soomaali ku doonaba ha ahaad Soomaali laftiisa madow baa nahay raali ahada kaamarada wax yar baa kaamarada madow mugdiya ku jira waxaan idin ballan qaadaynaa qofkii ayow cadaan iyo madow iyo Soomaali baa haw labada kun ana bixinaya ka badanna waa idin siinaynaa ayaduna hadayna maqnayso waan ku jecelnahay gabadhan we love you you're our daughter we will honor you we will respect you we will give you reward you and your friends please haday noo shahay soo celi dambi idin ma haysano waxba idin ma raac waxa dhici karta in saaxiibada ay raacday gaari lagu raacday inay weekend holidays ka aaday inay dalxiis aaday tourism waxa laga yaabaa inay beach ka aaday waxa dhici karta another city inay aaday waxa dhici karta maybe she went to different city maybe visiting qof waxaas ka suurtoobaysa maamay maskax ka weyn kale ina qaaday ma xataa ma waxa jira mugtaa cunug ka suurtooda asxaab friend leh cunug inuu socod badan yahay ama inuu baxa jecel ama inuu dad kale la kulmo just iyada familka habaryarteed saaxiibka u dhow habaryarteed way ana waa qurxinaynaaba xataa kuwa hadii bay noo shayba ay la joogtaba waxaan ka soo qaadaynaaba dad dalxiis aadayba ama damba anagu dambi cid uma haysano we are not filing any lawsuit against anybody. No, please bring her back. Return her to her home. Gabadha Sucili, please. Wala shaway. Hadad ogtahay, hadad ka warqabtid. Anagu wadii ay raacday hadii ay ka haystaan ba waa baryayna abaal tartaan. Abaal marina waa basi ugu darayna. Dacwad miyaan haysan anagu? Waxba uma haysano. Ma dacwaan u qabnaa? Is there anyone who planning to file lawsuit? No, please just let her come back to her home. Please, we are begging you. Please, من فضلكم. اسكسر عليه، قولي كسر عليه. هذا إذا راعي، هذا صاحبتين، هذا أد كهشين، هذا قد بصيرة أدو وقعيستين، هذا يعني دراجسي وحسيسين، هذا أي سكين راعي، هذا إذا كفكرتين إنك حيستان. Please, اسكسر عليه، please. وإذا برينا. مركز إذا قارياس حقياسي سان. gaarigaas xoog buu ku baxmay adarkiisa kaamirada markii la furay gabadha galaaskay ka soo baxday after galaas meesha hallway fayisatay van waxa aba SUV waxa u maleynaa Highlander oo wuxuu ahaa maxal dhigi jiray no RAV4 labadaas mid ah tayo ka gaariga sax then is galaaskaas 5 period waxay ka soo baxday 6 period no 6 ka cunta la cuna 5 period soo baxday because 1149 ka soo baxday
فرق تي شناد بقصة بعده 11:45 ay kasoo baxday galaaska دنا cunta dan way soo baxday hallway-ga soo martay musqusha ay gashay after musqul ay kasoo baxday meel jambina ilmaha ay fariistaan baa jira halkaas ay fariisatay cabaar ay fadhiday and then gadaale u noqotay kadib waxa la arkayaa inay soo baxday haday soo baxday gaari cad bay soo ag martay dan gaariga meesha ku jira kaamirada ma arkayso madowga ah wuxuu eegaa gaari meesha parking-ka gadaal u galay 2 seconds عمل قارينا حولي يكون حتى مسي استاجن سوق أردا يبحث ستوب مقاضي حتى مقاضي or light كو رد بوها لايت ما راح ستوب لها هي ستوب حتى مقاضي نمو أردا قاري مركو حبا خلدن ما يبيع because كان مرة عبارة دي لسي فيري ما لها وحصون نقدنا ما لها استبتينا ما استاجن استبتنا حواركم مرة مركا الله أعلم وحجره الله أعلم وحجره إلهي يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم إله كسوسي ده محاد قياس السنة دينكو قبل عقل بدن بعيد سما ما شاء الله وحويان قف هذا البدن ما هين qof degan bay ahayd qofka ugu degan waa laba dhalinyaro la joogto walaalkeeda ka weyn iyo habaryarteeda ka weyn qofka kaliya waxa way xaafada ugu degan qasnada gurigeeda hays calay kul xal wixii wax walba oo guriga amaanka gurigeeda mas'uulka ahayd everything hadii maanta wax loo baahdo qofka kaliya guriga wax laga weydiiyay ahayd qof degan qof banaan aadam ma ahayn qof saaxiib la ma ahan just frank ugu dhow wuxuu ahaa school after school guriga imaani oo gurigaas kaaga adeegi dase hadaladii kugu dambeeyay ama waxaad ka xasuustay markii kugu dambeysay subaxaas markay bixaysa subaxii aniga safar ahaa oo Mondaydan baxay oo bari ah maybe inay bixitaankayga xataa ay ka xumaatay hooyo waxay igu leedahay hooyo hadaa bixaysid baasaboorradan ka qarinaya waan ku qoslay way soo noqotay maxay ku tiri baasaboorrada ka qarinaya maadaama bixis hooyo marka habaryarteed baa too rasuulkeena nuuxi alayhi salaatu wasalaam al-khalatu bi manzilati al-umm hooyo habaryartu waa hooyo marka waxay ku lahayd baasaboorrada bariyahan waxay leedahay hooyo maxaa u bixi iska joog dan markay bixis waxay igu tiri hooyo waa ka qarnaa baasaboorrada waa ku qoslay waxaan ku baxay iskuulka aad way ii soo noqotay waa ka qarnaa igu tiri baasaboorrada hadaa joogayso ayadu qoslaysa iga tagtaa anoo qoslan ilbaabka ka xir hadalkii iskuulka ay dambeeyay kaas waa sax waxa ii xigta aabo inuu waayo isoo wacay gabadha waa la ahay wada marka ereygaas hooyo baasaboorka waan ka qarinayaa iyo inay dhibsanaysay bad qiyaas saamiya safarkaaga maybe waa bariyahan bay ugu iyada kaliya ma ahan kulligood ba ilaaha bixin nala joog hanaga tagi waa gartay oo iyada kaliya ma ahan saddexdooda waxay lahayn hanaga tagin nala joog waxaan ku sasabay wax yar baa maqnaanay oo soo noqonay marka ma garanay inay waa gartay ilaaha ma garanay wax jira ka waran salaada ma tukan jirtay ha quraankeeda salaadeeda quraanku way taqaanaa masha dugsigeeda telefoonka ka qaadaysa online ka dhigata dugsiga laakiin neighborhood kaas waa neighbor dadka madowga u badan soo ma gurigeena soo ma xaafadda ay deganayd ha waa neighborhood ka waxa u badan madowga u badan xaafadda waxay ku fiican tahay xaafad kuwayda way wax banaan u soo baxa ma arkaysid meesha ay degantii laakiin area waa meel yani area waa meel madowga ku badan xaafadaas Cleveland Avenue laakiin waa meel nabadgelyo aad iyo aad way maalintan deganeen wax dhib anaga kuma aan arag hatta waxa badriday ma aan arag laakiin area waa area oo madow daroogadii iyo dilkii waa ka socdaan Cleveland Avenue hoos markad aadi ya meel ka nabadaysan mala meesha aan degan ya xaafad aad u degan dhaqaaq badan ma laha laakiin dariska dhan waa madow xaafad Soomaalidu deganta waa madow wax Soomaali ma degan waa madowga aad degan Soomaali anaga degan Arab iyo Pakistan iyo Hindi waa degan iyo alla tarayaan maybe 3 qoys 4 qoys muslim ahaan ma waxaan ka hadlayaa xaafadu waa xaafad madow area waa area madow waa xaafad ay degan yihiin dadka madow oo Soomaalidu meeshay degan tahay xaafadahan oo dhan waa xaafada madow north qaybta aan degannahay oo dhan anigu inkastoo aan ka gurin laakiin waa meel madow waa yahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inoo soo celiyo gabadhu saaxiibo Soomaali ah ma lahayd waxba kuma ogeyn anaga gabdha Soomaali oo iskuulka saaxiib ay lahayn ma jireen iskuulkaas the friend oo ma jireen galaaska la isla dhiganaya ma ahane inta iskuulka lagu lahaa wax saaxiib gaar ma waa gartay anaga saaxiibkeeda ugu dhow habaryarteeda ma naqaana
ها لك waxay leedahay seems like she was taken waxay muuqataa in la qaatay Allahu a'lam anagu ma naqaano kuma dambaabi karno laakiin waxaan leenahay dalxiis inay aadaan rajaynayna insha Allah ama saaxiibo raacday ama dad raacday please bring her back please we'll reward you we'll give you a prize abaalmarin ayaan idin siinaynaa insha Allah taala waa gartay fadlan ka qayb qaado badbaadinta gabadheena Rayaan 206-503-9912 waa zeelka iyo cash appka fadlan ha u kala harin walaalayaal gabar baa luntay gabadheeni baa naqan private investigator ama detectives baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay lawyers waxaa loo baahan yahay reward labadaba waa la sameeyey fadlan walaalayaal dhaqaale loo baahan yahay min fadlakum walaalayaal barakallahu fiikum walaalayaal ka qayb qaata walaalkay iyo walaashayay wax aad bixiso adigana waxba ka dhimaynin gabadhaas Soomaaliyeed ee walaasha ah ee gabadhaadii oo kale ah lagu badbaadinayo waxa weeyaan ka qayb qaado walaalkay ka qayb qaado wataas waa gabadhaas Soomaaliyeed ee quruxda iyo qaayaha Ilaahay siiyay waa 14 jir ma sha Allah aabeed waxa la dhahay Cabdirsaaq Ganay oo jooga caawa magaalada Dhuusamareeb kana soo jeeda Dhuusamareeb iyo Gurceel walaalayaal ka qayb qaado waa kana abtiyaalkeed habaryaraheed dadkii soo korsaday waa dir iyo daaroodba way ka dhalatay ma sha Allah fadlan ka qayb qaado badbaadinteeda fadlan ka qayb qaado gabadhaas qalanjada ee qurxuleyda badbaadinteeda walaalayaal ka qayb qaata walaalayaal 206-503-9912 206-503-9912 waa gabadhaas sharafta leh ee qalanjada ah ee qurxuleyda ah ee gabadhaadiya ka qayb qaada walaalayaal xoolaha iyo dhaqaalaha lagu badbaadinayo fadlan gabadhu TikTok ma leedahay leeyihiin waa leedahay laakiin ma كحرنتها ويس كحرتي يا تليفونك مو وضعته تليفونك وينك تيك توك ولا لا لكن انت ما قلت تيك توك هذا يعني فرتون الفيلم تيك توك يا سؤال في عن لو كان كرو انه شاين كلا iyo maartay فرتون تيك توك ما leedahay Rayaan ma lahayn سناب شات ما شاء سناب شات كذا ما leedahay dadka wax dhigdhiga ma aha shihaabil badjin waxa la fiirsataa wax ma dhigto laakiin ma foobin kartaa hadda bal inay wax soo dhigtay may wax ما soo dhigto xitaa ma keen joogto oo ku socona faano oo ku socona ayga ku socona faano waxay leeyihiin sawirkeeda magaalada dhan meel walba geeya waa tana Rayaan abeedi stepfatherkeedii Dair Ibrahim oo jooga South Africa uu daawanaya sidoo kale aabaheeda biological aabaheedii runta ayaa dhalay ee jooga caawa Dhuusamareeb Cabdirsaaq Ganay Cabdirsaaq Cali Aadan Cabdirsaaq Ganay ama Ganay Cali Aadan asaguna waa daawanayaa Gurceel iyo wuxuu ka daawanayaa walaalayaal fadlan aan ka qayb qaadano ka qayb qaata gabadhaas gabadhiini weeye badbaadinteeda barakallahu fiikum wow she looks so grown for 14 years old but masha Allah nice information yeah walaalayaal ka qayb qaata fadlan 206-503-9912 zeelka iyo cash appka weeyaan please meel ho u baan hada lagama keeno meel ho u baan hada lagama keeno soo dira lacagta walaalayaal soo dira lacagta walaalayaal walaalayaal ka qayb qaata barakallahu fiikum waxay leeyihiin haddii la afduubay waxaa ka haystay kuwa dumarka ka ganacsada
ama qof ay taqaano ayaa loo soo diray khaasatan hadday ajnabi saaxiib la tahay waxay tahayba wixii abaalmarin ah gabadhaas Soomaali ahaw cid kasta ahaw ila soo xiriir 614-316-6075 waa nambarkayga qofkii soo celiya ama sheega gabadhaas meeshay caawa joogto $2,000 baan farta ka saaraya oo siinaya fadlan ka qayb qaata kaalmada ee gabadha fadlan ka qayb qaata 206-503-9912 zeelka iyo cash app-ka walaalayaal hooyadii maalintii dhawata waad u hiliseen kuwii hore waad u hiliseen fadlan qoyska soo kaalmeeya soo garab istaaga soo dira lacagaha waxaan waxba kaa dhimayn anfacna ula walaalahaaga Soomaaliyeed ehelkaaga Soomaaliyeed please 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 waa gabadha Soomaaliyeed ilaahay quruxda iyo qaayaha siiyay qofkii aad ka soo sheegay sagana lambaradana soo nambarada sheega nambarkaas 206 nambarka la soo xiriira sidoo kale nambarka meesha ku qoran waa nambarka oo telefoon iyada sawirkeeda ku dul qoran yahay telefoonadena weeyaan ya nambarka 6513993 kan ay leedahay abayo ya aydaale nambarka wataasa gabadhii fadlan waa 14 jir inan ama sha Allah gabadha qofkii arkow soo celiya walaalayaal walaasha way ilaali dhibaataha u geysan haddaad jeceshahay waa lagugu darin waa lagugu guurin maxkamadda un baa la tegin consent warqad yar baa la qorin in lagu ogol yahay please please badbaadi please dhibaataha u geysan ayaduna haddayna maqlayso please waxaad jeceshahay waa kula jecelnahay waxaad rabtid waa kula rabnaa waxaad ka heshay waa kaala helnay walaaley waxba laguma diidin soo noqo waa lagu dhisin haddaad jeceshahay marka walaalayaal please walaalayaal soo kaalmeeya qoyska 206-503-9912 206-503-9912 zeel cash app iyo weliba inaad kala soo xiriirtaan walaalayaal okay maxaad ka codsanaysaan dadka idin daawanaya ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool Columbus Ohio jaaliyada culamaa u diinka masaajidyada dhaqaala loo baahan yahay hil yooba loo baahan yahay waxa loo baahan yahay gabadhii in laga qayb qaato baaritaankeedii in dawladii lala xiriiro in maartay neighborhoodyada iyo xaafadaha kala duwan lala xiriiro dadka jaaliyada Soomaaliyeed oo 70 kun 80 kun ku dhow magaalada maxaad ka codsanaysaan iyo Soomaali weynba waxaan ka codsanaynaa Soomaali weyn dhammaan jaaliyada Soomaaliya inta ku nool Ohio iyo maartay Mareykanka inta ku nool oo sawirkan ay aragto inay nagu caawiyaan in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay noogu soo jawaabaan tan kale waxaan ka codsanaynaa jaaliyada inay na garab istaagto hoo iyo hilba inay garab istaagaan taas baan ka codsanaynaa haddii Ilaahay waa garta dhinac dhaqaale iyo dhinac kastaba dhinac walba inay na garab istaagaan waa garta sidaa weyn aye muhiimada kalena waxay tahay waa meeshan Mareykan cid walba guri ma gali karta laakiin dadka darisyada is caawin karaan haddii arkaan haddii ay guriga qof uu og yahay inuu information ka soo gudbiyo soo cidnaad kala gambanaynin ama isnaad ka baqaynin inuu nagu soo hagaajiyo insha Allah inta kale gabdhihii iskuulka asxaabteeda ahaayeen iyagana waxaa ka codsanaynaa waalidka in ilmahooda intay la fariistaan xataa waxay ka og yihiin maadaama iskuulka ay isla dhiganayeen ardayda kaliya iskuulka isla marayeen ay tahay ubadkoodana inay noo wareystaan ay weydiiyaan hadday wax tirsanaysay hadday dhib qabto hadday cabsanaysay anything ay ka og yihiin iyagana inay nagu caawiyaan xaggee lagu waayey ayay na weydiinaysaa xaaw iskuulka magaaladee Columbus Ohio waxay kaloo ku weydiinaysaa Yaasiin Warfaa did the police send the number alert nationwide waxaan jeclahay waa numberka kan number ma sameeyey booliisku oo nationwide ah
waxaan jeclahay waa numberkan booliska iskala soo ma numberkan kan laakiin booliska ma sameyn number nationwide ah ya ma sameyn amber alert number alert nationwide amber alert dalkoo dhanba ma u direen alert yani ogeysiis gabadhan inay luntay in la la'yahay inay maqan tahay amber alert waxaan jeclaa waa digniin dalka loo diray gabadhaas sawirkeedii meel walba dhigayo immigrationka aeroboorada xuduudaha meel kasta la dhigayo meel kasta yani ma jirtaa yani weli lama dhigo weli lama sameyn taas waa loo u qabanayba maadaama booliska 48 to 24 hour kadib hadda meeqay maqanta saddex maalin maqan tahay Friday iskuulka waxa ugu dambeysay xilligay sii bixaysay hadda waa ka badan tahay 48 hours ilaa hadda waxa ma sameeyeen booliska wax action ay qaadeen ma hayno ya just one dambe baa 72 saac bay ku dhowdahay almost ya maybe yaga bariya kuma marsiyoonayaan maybe insha Allah tomorrow xisaab baxa hadii ilaahay walaalayaal waa gartay marka qof kasta oo gabadhaas walaasha soo sheeg waxaan ka codsanayaa qof kasta oo maqlaya walaalayaal zeel cash app labadaba ku soo dira walaalayaal dhaqaale loo baahan yahay meelaha u baahanaada lagama keeno 206503991 206503991 206503991 zeel cash app ku soo dir walaalkayow barakallahu fiikum why 24 hours if she's a minor maxaa 24 saac looga dhigay haddii ay minor tahay ilma yar tahay because waxay uga dhigeen excuse waxay ka dhigteen ilmaha hadduu 10 years ka yar yahay oo 60 wixii ka weyn waxay dhaheen emergency oo noqonaya 60 yes they said 65 actually then waxay dhaheen maadaama 14 ay tahay qof dhalinyarana ay tahay teenager ay tahay maybe iyada iskeed inay meelaha iska soo marmarayso iskeed usoo noqonayso maybe inay dad raacday intaasaan waqtigaas u siinaynaa maadaama emergency ay noqon karin after 24 hours or 48 hours haddana weekenda soo galay excuse-na weekendiga ka dhigteen oo waxay dhaheen iskuulkii ma aadi karno iskuulku wuu xiran yahay bla marka insha Allah wixii tomorrow soo baxa hadii ilaahay Abdullahi Matan wuxuu leeyahay subhanallah what happened to Ohio community maxaa ku dhacay jaaliyada community 100,000 baa la sheegay inay degan tahay jaaliyada community walaalayaal alisu gurmado walaalayaal qof kaligiis wuu daalayaa anu kaligay waa daalayaa please waxaan idinka codsanayaa waa gurmateen maalintii dhaweyto lacag xoog labad aruuriseen waa gurmateen waa sudanqateen waxaan idinka codsanayaa idin ilaahay darti idinkaga codsanayaa walaalow waxaad awoodid numberkan ugu soo dira iyagaa iskale please halkan waxaan u fadhiyaa soo dir waxaad awoodid gabadhan qoyska la qaybso murugada baadigoobka lacagta investigatorska dadka baarayaalka la siinayo please zeelku waa 206503991 haddaa qalbi naxa aad leedahay haddaad qalbi naxa leedahay dad qalbi laxa leedahay trinayt wax seexda malaha afrika iyo halkan ilaa turkiga dadka jooga ya trinayt wax seexda malaha ilaa afrika wala ayaydeed ilaa seexaan ku kare laana ilaa hadda ayaydeed صح wala soo wada taagan qof indhaha isku qaban kara ya wax seexan kara ma lahaba indhaha isku qabaad sidii ku soo hor istaagaysa wallahi sinay usoo jeednaa all of them kulligeen wallahi wax seexda malaha waatana rayaan walaalayaal maxaad sugaysaan please wataa gabadhiini walaalayaal waa gabadhaas Soomaaliyeed way maqan tahay ma hayno meel ay jaan iyo cirib dhigtay ka qayb qaado kaalmadeeda taageeradeeda 206503991 zeel cash app please haddaad qalbi naxariista leedahay haddii damiir aad leedahay please walaalkayow
walaashayay ka qayb qaado baadigoobka walaasha ka qayb qaado dhaqaalaha please family la soo xiriir zelle cash app 206 503 9912 please walaalkayow walaashayay ku soo dir waxaad awoodid halkaas please walaalayaal ka qayb qaata 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 please 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 walaalayaal ka qayb qaata meel kastoo aad joogtid dunida xawaalada magacee lagu soo diri karaa su-aashaas ayaduna taalla qofkii ka qayb qaadanaya xawaalad lacag kusoo diraya xawaaladaha kala duwan nambarkeeb magaceebu isticmaali karaa xagee buu soo diri karaa علي محمد علي محمد وأوجد علي محمد حسين يا علي محمد حسين علي محمد حسين وتشوجة مقالة كولومبوس أوهايو علي محمد حسين وتشوجة مقالة كولومبوس قبل كاسي أوهايو نمبر كذا 612 612 6 1 2 4 3 612 4 2 3 42 423 612 423 8156 612 612 423 8156 magacii muxuu adeer علي محمد حسين علي محمد حسين نمبرkiisa wakaas waa Columbus Ohio qofkii xawaalad lacag uu soo diraya meel kasto aad joogtid dunida magaalada Columbus Ohio gobolka Ohio please ka qayb qaada walaalkayow okay walaalayaal meel kastoo aad ku aragtaan la soo xiriira numberka qoyska please Muhammad jirta you I have a questionka su-aashaada maxay tahay walaal wuxuu yidhi waa maxay lacag aruurintu horta gabadha la helo waa su-aal fiican lacag aruurintu waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay lawyers waxaa loo baahan investigators sida waaridku ay xaqiijiyeen yes I think money reward helps on when there is a clue or fair whereabouts lacagtu anfac bay leedahay marka la helo meesha ay jaan iyo cirib dhigtay nacam lacagtaas rewardka ah ama abaalmarinta ah waxaan siinayaa $2,000 qofkii soo sheega shakhsiyan anigu waxaan siinayaa $2,000 I will give $2,000 for anybody who give us clue or information about her or
whereabouts more than that ay mudan yihiin yes wax ka badan baan siinayna laakiin anigu personally waxaan bixinayaa $2,000 baan siinayaa qofkii soo sheega gabadhaas CBS report ma la qoray ha waa la qoray warbixin waa la sameeyey mobile ma lahay telephone yeah ma dhacaya Yeah. u yaal telefoonka ka tagtay may ka tagtay yaa u yaal wayba ka tagtay yaa u yaal guriga yaal ilaahay nabada ku keeno please walaalayaal Soomaaliya gurmada gabadha hala raadiyo sawirkeedu waa kana qofkii soo sheegay meeshay joogto abaalmarin baan siinaynaa iyo mahadcelin hadduu jecel yahayna waa u gurinaynaa Soomaaliyahay waxay jeceshahay in haddayna maqlayso waa ku taageeraynaa wax allaala waxay jeceshahay waa ku taageeraynaa wax allaala waxay rabto waa ku taageeraynaa kaliya inaan ogaano inay nooshahay oo annagoo ehelkeedii iyo dadkeedii ah naxdin iyo hiq iyo haq abeed cabdirasaaq ganay xaggu ka daawanaya step fatherkeedii Ibrahim wuxuu ka daawanayaa isaguna Daahir Ibrahim South Africa awowgeed waa kana hooyadeed dhalay waa tana habaryarteed habaryarteed kale waa tana habaryarteed kale halkaan ay fadhida iyaduna oo isku iskuulka ahaayeen maasha Allah iyaduna waa qalanjadaas sharafta leh Allah iyadana Allah xifdiyo Allah dhowro Allah barwaaqeeyo Allah noo dhowro gabdheena oo dhan adeer maxaad leedahay adiguna insha Allah waxaan dhihi lahaa hadday daawanayso walaasha haddii uu qofka haysto ama qofka ee la socotoba uu daawanayo waxan ama uu arko because laba goorna buu arkay qofka guriga ay ku jiraysaa meel kasta waa la dhihi marka waxaan dhihi lahaa iska soo bax riyaana inta soo bixi kartid soo bax laba goorna ugu dambeyntii annagunbaa doo iman soo bax waxaarti waa lagu sameeya waxaarti waa lagu siiya qofkan kula socdana wuxuu rabo waa la siiya haddii kaleeta nambaraantana waad haysaa telefoonadeenii oo dhan way wada shidayihiin qof uun usoo tagsigara waa noolaa wax leh lagaa helo haddii laga helo intaas anagaa qaboobayno tartiibtaada lagu raadina guriga iska imaanaysa waxaartaa lagu sameynaa waa intaas qofkay jeceshahay waxay jeceshahay waa loo sameynaya inta English ku dhaadir please say that in English we're gonna do whatever it takes for her to come back if she needs anything we're here for her at the end of the day as long as she knows that she has us we're here so she doesn't have to worry about going anywhere. If she's watching this, she's hiding. The people posted her everywhere. If she's hiding, she can't go anywhere. If you're hiding, Rayan, you have my number, the only human that you can think of, okay? Dad is about to be in a hospital because of you. Nobody has slept. So if you know what you're doing, because clearly you do, Rayan, can you come back and we can talk about it? We don't even need to talk about it. You can tell us whatever you need. We're going to do it at the right time, at the right moment. You don't need to even tell us. We're going to do whatever you ask. Just come or at least text someone, call someone. It doesn't even have to be me. Call one of your friends to tell me. So you don't need information. Tell me and tell them to text them. Tell them to text me. It doesn't have to be anybody else. At least call someone, text someone. You don't even have to text us. Just say you're alive, end of the discussion. Whatever that you want, just tell us. That's it. I mean, all we're asking is I hope that she's okay. I hope that she's doing fine. What is your advice also to her friends, whether they are ladies or girls or female friends or male friends? What is your advice to them? What's your question from them also? maxaa ka codsanaysaa dadka saaxiibada la ama ay raacday haddii ayna maqlayaan? anybody knows Please, we respect you, right? We're going to respect them, right, too? Right? So listen, this is how it's gonna go. Whoever knows at the end of the day, if you lie today, lie is gonna catch you. You know, lie is not gonna go anywhere. It's gonna catch you at the end of the day. If you know something, it can be the littlest thing. It can be a car. It can be anything that you know you have to say. All you have to do is just spit it out of your mouth. Because at the end of the day, the lie is gonna catch you. You're not gonna go anywhere from that lie. And then at the end of the day, you're gonna be in trouble. You're gonna be in more trouble. The more that you protect her, the more that you get in trouble. So if I were you, I would get out and say what I have to say and not keep my mouth shut. And also, you're kindly requesting from them. Kindly. Humanly. Honestly, yes. Because if it was your sister, if it was your brother, you would have done the same today. Everybody would have done the same for you. They would have been looking for her. So if I were you, as a brother, as a sister, I would have helped this person that is missing.
because you're nothing other than a Somali. You're nothing different. You're the same. You're human. We're human. There's nothing different. All you have to do is just speak. That's all we need from everybody that's here that knows something. It can be the littlest thing. So please come back to home. Yeah. She doesn't even have to come back. All she has to tell us is text one of her friends, text me, text her sisters, her aunts are here. Text one of them and say I'm alive. That's all we need. That's all I can think of. These people, my family, they want her back. But for me right now, what I can say is just text one of us at least. Because what can we do? We looked everywhere, we tried everything. So at least text one of us. If you're alive, yeah. If you're alive, Rian, just know at the end of the day you're gonna be back in this house. No matter what happens, you're gonna be back. So at least just text us if you don't want us to see you. If you don't want to get in trouble, we don't have anything against you. Just come and say or text or call someone. All we need to do is hear your voice. As long as you're safe, all we can do at that time is just search you, find where you're at, and give you whatever you need. Because at the end of the day, you're the one that needs something, not us, Rayan. And whoever that's looking for her. So if I were you, I would speak kindly and say whatever I have to say. And that's what you feel that she's alive. Yes. Because why would someone drive off if they're not alive? Yep. walaashadu waxay leedahay waxaan qiyaasayaa inay nooshahay sababtoo ah gaariga way raacday oo way aaday oo gaariga yani saan qiyaasayna 90% yani you think it's someone drive, right? Yeah, because clearly you're walking. A student can't walk out of a building and just be in a random car. There's cases, there's reasons that's causing this person to do this. The person that was driving might have pulled a gun to her, told her to get in, or I'll do something. But she's walking to the car. But she's walking to the car. So if the person knows whose car it is, if the person has any clue where the car has been, if you know anything, it can be the littlest thing. She left from the school and went toward that car. Yes. Schoolka ka soo baxday dhinaca gaariga aaday marka waxa qiyaasta waa qof sugayay oo ku sugayay meesha. It could be, yeah, because qofku wuu soo galay horun u baxay. Marka wax ma arkin, we didn't see anything. All we see, she went to the car, the person left off. waxaa kaloo laga yaabaa cabsin inay u geyso oo loo goodiyo la dhahaa gaariga soo raac ama waa teenager haddii la buulo gareeyay oo la dhibaatay la dhahaa ama darooga la siiyey ama haddii kala dhahay dee haddaadan waxa lagu ama jacayl beena loo sheegay wax walba ay noqon kartaa gaariga dee muhiim ma ah qofka jacayl dadkiisa u kora gaari waa loo goodi karaa waa la cabsin karaa iskuulana wax ka dhaca most of the times mar walba wax yar waa dhici karaan ama iskuulka wax walba la siin karaa harjana ilaahay inuu kusoo nabad celiyo insha Allah. If they give her a drug, someone is asking. Well, no, drug after malaha. Drug at the seal laha de musa'atin. She's smart. She's smarter than using a drug or whatever that has to do with drugs. Right. She's smart, no. So someone might have done something to her, or it's either someone could have said something to her and she got scared. Or someone told her, yo, let's go out, we're gonna do this and this, or you're gonna come back, and then it went in the wrong direction, it went in the wrong position, it went the way it didn't went the way that she might have wanted it to go. inay sirsiteen waa soo dalxiisaynaa waa soo noqonaynaa ama chill out ama maarta xoogaa hangin maxay dhahaan haddii ay kudma hangin out yani iska soo baashaanaynaa inay dhaheen baa dhici kartaa yani baa dhici karta inay dhaheen ka bacdina laakiin gabadha walaasheed waxay dareemaysaa in yani ay nooshahay bay dareemaysaa sababtoo iskuulka ka baxay kaamarada adeerna ii sheegay kaamaradii maxay adeerna tusaysay inay sii socoto haye oo gaariga ay raacaysa gaaray ka gudubtay gaari cad bay ka gudubtay gaariga madowna meesha ilbirqsi gaarigiina waa xif buu ku baxay stoptina waa jaray gaarigaas inay raacday iyada si kasta waa la handadi karaa waa la dhihi karaa waan ku dilaynaa haddii kale gaariga soo raac wax walbaa la dhihi karaa de waa wax hadda maanta waddanka ka jira waa ilmo yar way cabsan kartaa. Does anybody knows the place of the car? hataa waxaa la dhihi karaa waalidkaadaan leynaynaa haddii adiga aadan waxaas noo samaynin
wax walba waa iska dhici kartaa marka waxay u leeyihiin gaariga ma la yaqaana taargadiisa iyo suuqa kaay kulley waa la talaagarey laakiin weli berri waan sugaynaa haddii alla idma booliska inuu meesha tago oo bal baaritaan xoog leh la sameeyo soomaalida ohaayo ku noolna waxaan ka codsanaynaa inay noo kacaan wax nala qabtaan haddii alla idmo waayo maartay Soomaali baa nahay anagu ma isu gurmanaynaa walaal ka qayb qaado zelka 206-503-9912 206-503-9912 206-503-9912 xawaalada qayb ka qayb qaado cali maxamed xuseen waa Columbus Ohio kusoo dir cali maxamed xuseen oo awowgeed gabadha Rayaan Ali Daahir Ibrahim waa her stepfather Daahir Ibrahim الور سنجلي وتشوغا ساوث أفريقيا لكن أبيد وحال عبد الرزاق جني أما عبد الرزاق أبيد بيولوجيكال كورنتا عبد الرزاق جني أما عبد الرزاق علي آدن ويعني هدي لك رد سمراب ورعال العيري وهدي لك كدماي الله حفظيه إلهي يسوع قبل أن نسوع عليه نقفكي أركا يقانا نصور كذي وإنكو علنا يا ولا ليال وتاسع gabadha safriyto binjirka ah oo inanta ah ma sha Allah waa taasa wajigeedii oo si fiican idinku muuqdo wakaas walaalayaal ilaahay xifdiyo Allah soo celiyo waa taasa walaalayaal Allah soo xifdiyo Allah soo celiyo wata inantaas soo duceeyo kulligiin sheer gareey gaarsiye isgaarsiye waa inantaas ma sha Allah qalanjada quruxleyda Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa bi asmaa'il husna wa sifatil ula inuu soo celiyo iyadoo nabad qabta soo celiyo calankeedii Soomaaliya ay ku labisantay iyo midabkii buluuga Allah soo celiyo Allah soo nabad celiyo Ilaahay soo nabad celiyo inantaan waa 12 jir waa gabadha Soomaaliyeed waa gabadhiini waa dhiigiini waa dhacaankiini walaalayaal ka qayb qaata kaalmeynteeda xaq dhaqaale iyo xaq maarta jaalid ahaan inaad istaagtaan min fadlakum kulligiin ka qayb qaata walaalayaal abeed Cabdirasaaq aadan absaqanay oo Soomaaliyeed gurceel jooga waxaan u dardaarmaynaa sabir iyo dulqaad insha Allah waan u dardaarmaynaa missing please and soo duceeya ka qayb qaata dhaqaale ahaan and I will help you to send the money when you call the police report well police ki wal report gareey walaale did they make police report someone is saying I will help and send the money if the police report were they two police reports. Yes, there's one that came to our house, and then there's one at the school that came to school and checked the cameras. But they did nothing. But they didn't do anything much. They just looked at the cameras. Okay. Marka laba jeer baan police report samaysay gabadhu ku tiri fartuun marna guriga inoogu yimaadeen waxna marna iskuulka oo kaamarooyinka ay baareen marka qofkan le dhaqaalan soo diraya please ka qayb qaado waa la seen police report Adam Jamahiri, the little girl is in trouble. Most of you accusing the family of knowing things that they are not sharing. They are not sharing. Yes, and I hope this young girl returns in peace. Inshallah, yes. We don't know where she is. We don't know what happened. We're standing with the family. We're sharing them with the pain and the grief and the sad. They're missing for their missing girl. Please share with us as humanly. Xanuunkan la qaybsanayna qoyska ma naqaano gabadhii meelay jirto gabadhii guriga iskuulka xiisadii shanaad kaamarooyinkii baa la hayaa wax been oo made up ma aha wax qarsoon ma aha kaamarooyinkii waa la arkay xiisadii shanaad bay soo baxday lixaad meesha lagu qadeeyay cuntada ayay joogtay la qaybso familiga walaasheed waa tan murugaysan madaxa iyo dhafoorka haysata familiga waad u jeedaan please share with the family the pain hadii la ku idmaayo adeer ma wax made up ah ma wax qisa made up wax kan ya wax real oo gabadhii maqanta guriga saddex habeen ka maqanta ya hay maqantay جمعة السبت أحد عوا سنين ها habeenkii habeenkii saddexaad waa caawin maqanta وهبينكي سدحات جمعة سبت أحد سنين أي.
صدح حبين صدح حبين باي مقدم واقرت صدح حبين wax seexda ma laha waa saan u soo jeednaa واقرت صدح حبين iyo صدح maalmood waa soo jeednaa kulli dadka oo dhan ehel hooyadeed xagee joogtaa turki bay joogtaa hooyadeed carruur kale halkaa ku haystaa allah u barakeeyo ayaydeed turki bay joogtaa oo xaajiga xaaskiisii ah hooyo ah waxay joogtaa iyaduna turkiga marka ayagina murugta idinla qaybsanayaan صح واقرت تليفون كذا دي الله هيو فون كمباني in loo geeyo oo dadkii saaxiibada la ahaa ama text message-kii ama la soo xiriirayeen baaritaan ma lagu sameeyey ya ya waa lagu sameyn karaa laakiin dadka sameyn karo wax jibin karo waxaa waa booliis waa gartay taasna insha allahu tacaala waa waxyaalaha la raba in la sameeyo oo la doonaya inaad ka qayb qaadataan dhaqaale ahaan ka qayb qaado zeelka cash appka 206-503-9912 206-503-9912 206-503-9912 زيل كاش اب حوالده waxaa ku soo aadisaa cali maxamed xuseen waa 612432815 lix hal labo xawaalada 4238 magaalada Columbus gobolkaas Ohio cali maxamed xuseen زيل كاش ابka waa 2 eber 6 5 eber 3 9 9 hal labo and please gabadha walaashina u soo duceeya ka qayb qaata please walaalayaal fadhiga ka kaca Soomaaliyay gabadhaas wataas walaalayaal sawirkeedii wakaas waa gabadhaas Soomaaliyeed waa gabadhiinaas please waad u jeedaan wataas walaalayaal gabadhaas qaranjada quruxleyda weeyaan ma sha Allah please ka qayb qaata and waxay leeyihiin someone saying Yusuf Ali Sheikh that's why it is important private sector they will do better job than the police dad baaritaan sameeyo oo gaar ah private ah dee la sameeyo kuwaas dee dhaqaale u baahan yihiin daraadeed ka soo qayb qaata marka dhaqaalaha 206-503-9912 206-503-9912 okay walaalayaal please 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 raqamashi xuseen walaale booliska waa lacay laba jeer baa la wacay dadku ima fahmayaan miya booliska laba jeer baa la wacay marna waxaa laga wacay iskuulka marna guriga booliska waa yimaadeen welina waa isku maqan yihiin kaamarooyinkii bay sheegeen in maaragtay xilliga ay baxday iskuul ka baxday meeshay fadhiisatay saacadday baxday gaariga ay maaragtay la qiyaasay inuu ay raacday marka please si fiican wax u fahmaa si fiican wax u fahmaa boolice report laba jeer baa la sameeyey and please qofkii arka walaalayaal jaaliyadu waa maasan tahay Soomaaliyeed ee gobolka Ohio iyo meel kasta aad joogtaan gobolada Mareykanka walaalayaal gabadhii waatana gabadhiini please
Rayan, please come back home. We love you. We respect you. waxaad jeceshahay waa lagu samayn haddaa guur rabtid haddaa qof saaxiibka uu jiro soo noqo waa naag weyn bay leeyihin ha waxay u qabaan qaarkood in maaragtay da'da la iska siiyey ya maraykan waa carruurta waa iska koraan soo ma carruurta waa iska koraan maraykan ya make upka miya waa bedeli karaa ha laakiin midabkeedu waa saadoo kale ya xogaa yar xogaa bay iga cayilan tahay bay tiri gabadhan wax yarna waa iga caddahay iyadu laakiin rinjigeedii caadiga ahaa wey rinji ismemberis adu adeer ya ya no painting rinjiga iyo diyaarada iyo ya fartuun waxay ku faraxsan tahay midabkeeda rinjina isma mariyay tiri ismara marin doono kaas ilaahay isiiyaan ku faraxsanahay I'm proud my color ilaahay ha ii barakeeyo qofkii igu raba igu jecel dee waa kaas laakiin inaa rinji ismariyo fartuun waa gabar kaftaleeya maasha allah rinjigaygaas sidaydaasaan midabkaygaasaan ku faraxsanahay alxamdulilah maasha qur-aanka ma bartaad u adeer suuradee gaarti suurat alxaqaaf maasha juska lixaad maasha allah ilayhi yuraddu maasha allah iskuulkee dugsigee adda online soomaaliya soomaaliya joogaa qofka hargeysa muqdisho lascaanood masheekhu idin dhiga qur-aanka marka meeqa maalmood idin dhiga 5 days lascaanood maasha allah sheekha u dhiga qur-aankana lascaanood buu joogaa maasha allah sheekh adigu maxaad leedahay soomaalida aad leedahay soomaalida columbus gaar ahaan Somali Columbus waa dad aad u wanaagsan community wanaagsan ka codsanaynaa si naxariis badan kalgacayl ku jirta waxaan kaga codsanaynaa gabadhaas in nala raadiyaan meel aad meesha ku arkaan in nala soo xiriiraan noo soo sheegaan waalidiinta ilmahooda la tashtaan la hadlaan si walba dhan walba ay kala hadlaan u sheegaan inay dee xanuun aan dareemayno saddex habeen la soo jeeda aad u murug badan tahay qof markuu kaa maqan yahay unbaa qofkaa dareemi kara xanuunka ay leedahay marka waxaan ka codsanaynaa hiil iyo hoob inayna garab istaagaan insha allah masaajidyada culamaa udiinka iyo qeybaha kala duwan maxaad leedahay iyaguna ayagana waxaan u sheegay inay wacyigeliyeen horta inay mar walba ducana nagu kaalmeeyaan sidoo kale ay wacyigeliyaan mar walba waalidiinta ardayda inay awlaadooda inay mar walba ku waanayaan inay wax wanaagsan sameeyaan inaysan ku dhiiranin ama inaysan wax iskugu sheegin si ay xumaan u sameeyaan mar walba xumaanta ay ka waaniyaan inaysan ficneenin in guri laga maqnaado ama inuusan qofka ku boorinin inuu wax xumaan sameeyo marka waxaan rajaynaa masaajidada iyo culammada inay wacyigelin badan sameeyaan صح adeer maxaad adigu leedahay soomaalida jaaliyadda anigu jaaliyadda soomaalida waxaan leeyahay dhirta maanta annaga haysta inay nala qaybsadaan oy kacaan oy fadhiga ka kacaan oy nala istaagaan meel walbana nala galaan dhammaan culamaa awdiinka waxaan maaragtay leeyahay ayaguna in wacyigelin masaajid kastaba la sameeyo oo sidii loo heli lahaa gabadha falkeeda ay galaan loo yaro dadkana ay wacyigeliyaan loo yar annagaaba qabanay maxaa la yidhaahdaa kolleyba howl buu hayaa shaqadiisa ugu wataa marka in maaragtay ayagana soomaalidana garab istaagto culamaa awdiin aqoon-yahano dhalinyaro haween dhammaan in nala garab istaago taasaan ka codsanaynaa soomaalida insha allah fadlan ka qayb qaado caawi walaasha 206-503-9912 206-503-9912 206-503-9912 fadlan ka qayb qaado waa zeelka iyo cash appka
zeelka iyo cash appka please ka qayb qaado 206-503-9912 waxaan siinaynaa abaalmarin qofkii gabadha sheega meeshay joogto soo celiya fadlan waxaan kuu ballan qaadayaa anigoo ah miskiinka alleh inaan ku siiyo $2,000 oo xaqiiqa ah wallaahi billaahi tallaahi ah inaan ku siinayo $2,000 haddaad gabadhaas aad soo sheegtid meeshay joogto inay nooshahay inay nabad qabto waxaan ballan ilaahay ku qaaday inaan $2,000 farta kaa saaro please insha allah ayadana ka badan baan siinayna ayadana insha allahu tacaala abaalmarin baan siinaynaa insha allahu tacaala waxay jeceshahayne waan u samaynaynaa insha allahu tacaala idinkuna ducada nagu kaalmeeya ya adeer inta looga baahan yahay waa inay soo wacdaan Ay- qofka ay la joogtaan qofka ee oo arkeen soo wacdaan ayada xataa hadday nooshahay kala soo wacdaan adeer see dareemaysaa environmentka iskuulladu caynkee weeye environment waa America waxaa samayn kara ma laakiin ilmahay ku xiran tahay iyo hooyooyinkood iyo aabahood ay ilmahooda wataan laakiin ilmaha agsaa guriga ula dhaqantid bay bannaankana u dhaqmaa oo u dhaqmo laakiin meel dawayda deeganaha marka igu soo orod maa laakiin waxaa ka jira meesha fasaad maya wax haddaad doonatid waa lagu iman wixii haddaad doonatid if you're looking for trouble it's gonna come to you but if you're not looking for trouble and you're staying away from trouble it's not gonna come to you marka daroogadii baa taalla waxaan baashaalkii baa yaalla masquulihii baa la isku fulfulayaa there's a lot of manipulation wax la dhaho oo waxyaalo oo qaarkood waa is indha tiraysaa un there's manipulation everywhere marka waa inaad indhahaas tirtaa oo isaga dhex noolaataa dee qof iska socdaa tahay aduu maxaad ka ogtaa wixii kula jooga xitaa waxban kama ogi sax dee marka waa hooyooyinkii iyo aabihii inay ilmihii gacanta saaraan kamana war hayaan iskuullada wax ka socda kama hayaan cunugeyga meeshan buu joogaa aldii meeshana ma joogo waa meeshuu ku ogaa laakiin ma joogo cunug sax bas waa intaas marka meel igu soo orada maaha gabar iyo wiil America way qaldan tahay kulli Yah. badana ma qaldano waxaan dhihi lahaa hooyooyinkii iyo aabahooda ilmihiina ceshta ilmihiina isagoona iskuulkaas gelin yaa laga tegin anaga aabaheen nagama tago ilaa iskuulka isaga nagu taagan yahay oo ciyaalku iskuulka inay joogaan baa loo qabaa ilmihiina iskuulka joogaan loo qabaa way baxayaan iska baxayaan oo iska baxsaanayaan hadhow baskay soo raacayaan adhowda waxaa iska dhigi qof maanta hore iskuulka dhex taagan oo baskaa la soo raacaya ya oo waa istaagayaan meesha haye adiga waxaa aaminsantaha cunuga iskuulka inuu kugu jiro sax badan break timeka way iska baxeen ma waa high school sax macallin waxba kama qaban kara aaminsanahay sida meesha waxa ka jiro dan cunuga intuu wuxuu rabu soo sameyn wuu soo noqonaya hooyada ma oga marka cunuga adiga haddaadan dabagelin mar walba cunugaaga aadan ogaanin anigi maanta everyday iskuulka mar walba taagnahay mar walba gradeekooda mar walba principalka la hadal maxay sameeyeen maxay kanayeen by phone life aan ugu tagaa anigii saa u daba socdaa maanta tan nagu dhacday you think marka hooyo kaleeto oo aan ka warqabin maxaa ku dhici kara intaas ka badan ku dhici karta marka hooyooyinka attention badan sameeyaan waay haddana waa la isku naxariista hooyo wax qariso anigu ma dhihi lahayn inay wax qariso way kuu fiican laba goorraba way soo bixi waxay runta tahayba ama ha noolaato ama waxa ku dhacaan laba goorraba way soo bixi marka qofkii hayaba ama qofkii ogba soo hadlo at least wax yar leh ha soo dhaho xitaa annaga ayada yaa loo nala soo hadlin qofka ay la joogto ama qofka haysto wuxuu rabaa sheegto waxay ayada rabtaa sheegto arag ogaan inay nooshahay inay wax ku dhaceen sax lacag uu haysto waa u siinayna whatever uu qofkaas hadduu nin yahay uu lacag u haysto lacag inuu ka samaysan rabo annagaa diyaar u ah wax walba uu sheegto qofkaas sax hadduu guur ka rabo hadday nooshahay hadduu guur ka rabo diyaara uma nahay inkastoo ay yar tahay haddana diinteena waqtigii way joogtaa sharciguna waa kule maraykanka warqad baa loo saxiixaya rabta ee diyaar u tahay waa diyaara una nahay marka ilaahay waxaan ka baryaynaa insha allah biidnillahi kariim ciddi og hadday nooshahay nolol iyo geeri horta whatever ay ahaatay ilaahay hortaa noo soo gacan gelin laakiin qofkii og hadduu jiro hanala soo socodsiiye haddaa aad dadkan ka mid tahay oo aa haysatid aad wax xun aad ka rabtid haddaa guur ka rabtid haddaa lacag ka rabtid wax walba aad ka rabtid diyaara kuula nahay jasyadii un noo soo celi ama wax un aan ka maqalno
إن شاء الله. صدق معلم بقى أنت اللي فديه أنت اللي صفر يضطك حتى تركي نجدر مالي نجدر حتى they're worried. You know, if this was you, you would have been worried. At least say something. When you say something, it's not gonna hurt you. لقوم يقان مالا جبت لقوم يقان ترى فاضي ما تصوت ترى ماشي بجوجا ونورها صاني صانا ربا أنا قد وقول رادين هنا لقوم مرة هاي قفت وصانا ورقي وحى مجر والقول رادين أما ماشي جبت الشاب أما ونورها الشاب لو ضاس من الدشة تبغى قنعين وحقنها دشة ولا قنعين كاس قفت مسيحان لا عطدي حتى والعين لا يعني بيننا مرون والعين لا ولا سيحان لا marka intaan oo dhan ma maqnaan kartid qofka ku haysto ama wixii ku haysto ama wixii adiga xitaa hadii aad maskaxda isleeda waxaan iyo xamad ka cabsanaya soo sheego aniga ii soo tagsi garee saaxiibayaasha waa taqaanaa snapchat-kaaga instagram-kaaga waxa dhan waa taqaanaa ii soo tagsi garee waxaad sameyn kartaa sameeysa ii heshidahay anagana saan ku helno ila waad u jeedaa wax kasto aan sameyn karno ayaan ku sameynaa saaxiibadeedii ma la xiriiray marka noogu dambeysay waa qadadii marka gabdhaha kulligood qadadu un bay la haystaan markii kaamarada ay ka aragtay kaamarada markay ay sheegayeen ayaga kaamarada xitaa ma ahayn way isla wada joogeen gabdhaha qadadii isla soo wada tageen qadada markay isla wada tageen dee gabadhii waa gabdhaha qof kasta aa weydiiyo wuxuu jawaab iga dhigayaa qofti lanchiga noogu dambeysay qadadu baa noogu dambeysay kulligood xitaa ugu qaydiyay si kasta ugu qaydiyay lanchigu baa noogu dambeysay dad marka ay saaxiib la ahayd ama wiilal ah oo la yaqaan ayaga xaga ma jiraan oo ama ay la sheekaysan jirtay ama ay la fariisan jirtay ana qofka aan ku ognahay ana habarteeda iskuulka ana dhigta ana ka aqaano wax oo gabdhahaas aan ahayn oo aan aqaano ayada taqaano ma dhihi kara maanta waxaan iyo waxaan taqaana gabdhahaas baan ku ogahay gabdhahaas baan ku arkay wiligay gabdhahaas baan ka maqan ana xitaa iskuulka markii ayada bixaysa xitaa iskuulka waan joogay cid ila ma soo hadlay cid waxay ma dhihin hadii wax la arki lahaa waxba la dhihi lahaa anaa dhihi lahaa marka aragna laga yaabo gabdhaha bataa inaan ogaan yaada laga yaabo gabdhaha inaan ka warqabin waayo hadday yiraahdeen laanjiga noogu dambeysay kama warhayaan maanta saas ay u dhigantaan marka de ilaahay baa yaqaana waxaan sida ay yihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa in alla noo soo iftiiniyo de waan dadaalaynaa ilaahay hana la garab gala intaasun baan leenahay adigana dabcasar ahaan waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay khayr ku siiyo dadaal badanna aad noo boojisid insha allah ما شاء الله ما شاء الله بإذن الله تعالى سومالي وين ولا ليال توزروا